ayadoo maalmahan ay wadeen maamulka degmada Wallaweyn iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose odayaasha dhaqanka degmada dadaalo lagu dhexdhexaadinayay beelihii dirirta ku dhexmartay deegaano hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Wallaweyn Maxamed Xaaji Mukhtaar gacmo dheere iyo odayaasha dhaqanka degmada Wallaweyn waxa ay maanta aadeen goobihii lagu dagaalamay si ay u soo qiimeeyaan khasaaraha iyo dhulka ayaan dhaweed dirirtu ay ku dhexmartay beelaha walaalaha ah ee Barbaare iyo Jambuluul oo ka wada tirsan beelaha Shan Caleemo si go'aan looga gaaro waxa la isku haysto oo ahayd dhul beereed waxaana la rajaynayaa in lagu guuleysan doono oo xal waara laga gaarayo arrimahaasi isqabqabsigooda ku soo laablaabtay halkaasi taasi oo markii ugu dambeysay dad ka badan 10 qof ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen maalmahan ayaa kulamo gaar ah waxa uu ugu socday maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo kan degmada Wallaweyn odayaasha dhaqanka si beelihii ku dagaalamay halkaasi loogu sameeyo dib u heshiisiin isla markaana xal waara laga gaaro Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.